حلنا قويها كأربنا هان لسود أبيي معها لأن أنت هلا جاي مال وحوجا لقصة شوي وده بتنسير ريكورد كدب الله شو ضيعوا إنه أنت سوى العلنية معها إيه حوية واقف يس وحيل بريسته يس كيد سمية أقونات قرار صدي وحبحثي ومر لبعض وحلنا واقف عقل متفتح عليه وأن إسكح بارنا إنه وحن وسيته وحن تتوارى بنا هذا مثلا وكيسان إسكت شوكتو وارى بنا هذا سيبا أرتس أردمي that's why أرتس كو ثيوري بدلوا ليه اللي هو نظرياتي وهاركتيو هل قلنا يا وحكن ناركتيدا reer galbeed ama aragtida liberalism kuwa sida aragtida shuuciyadu waa sida kuwa bidixda xiga waa kuwa midigta xiga waa haday dhaqaalata iyo haday siyaasad tahay iyo haday bini aadamka iyo saaloola everything aad soo qabato 3-4 theories baa ka jira what do this 3-4 theories laakiin marka aad joogto in chemistry ama in physics ama aynkan mostly kama jiraan waayo iyaga laabka inta la geeyo baa loo dhan yahay theory-ga ugu buray كنا واصح بنوض كاسلابك لكن كان كله artist كحقه بنادم كان له تجابيه marka wuxuu dhalaabaa la qiimeeyaa shuuciyada waa la tijaabiyay 7 sano markay wadeen bay dhaadeen naf ma leh waa laga guuray tan kale waa la wadaa hadii wax dhaama la helo waa laga guuraya hadaba waxaan rabnaa mar rabno qof inta la soo dhaamiyay dabeetana wixii lagu soo dhaamiyoon dadka ku farraqa ee waxaan rabnaa qof aqliga loo soo furay oo kayd aqoomeed leh kaydka ugu weyn ama aqoonta ugu weyn waa aqoon diineed aqoonta ugu weyn waa aqoonta sheegaysa inaad rabbi barato afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab miismayin baa ilaahay leeyahay ka wixii alla soo dejiyay garanaya inay xaq yihiin fahmay in doolaha miyuu la mid yahay baa la leeyahay xaqiiqada ugu weyn jirta waa Allah subhanahu wa ta'ala ninka akbar xaqiiqa garan waaye waxa kale uu garta qiimo ma leh waayo qaar baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إلهي قارب كنت المام يا إلهي وعدك سوى حق بالي لنا وحيا وهم خلاف ذاتك انت بدني وح مقرتها الليل وح مقرتها انت اللي شيء ايه هدنا علم الله شيء مركي الليل وح قرته وح مقرته ايه هدنا وح الليل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إن يرون نلش مقال كذا صرابة يقرنا يا بالي آخرة يا حقائقي وينين يا رب يا جنة يا النار يا تقرب ما يا بالي إذا أنا قلت هذه حاجة قرن وإذا قلنا ما هترسل سكالة مركانو تلمامو متعلم قفك الصومالية ده متعلم كاوحا نكرمنا قف سمين كرا cultural revolution قف هفي كرا رقم كالصومالي ده أيلاضي قف سمين كرا مسكحة قفك الصومالي وحكا بدلي كرا قف ثقافات كدلك النية لصحي كرا وحنكرمنا قف نقوم كرا هجان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحنربنا قفك متعلم كعصبي إنه النقضه قنديل كي أما افتين كي ومده هركعيي هو يفيل لها ماشي وسعته معها مثقف كانوا ربنا أما متعلم كان دورنا متعلم علوشي يسوي النور حان حوك سداون اللوردية حوك عبان صوابرتي حقيا با لعق بدل لغا هلا حراني حلال بان كليجينا وحول بلقا ما قف علالو النور حال اللقاء قف النولي ما متعلم ما سكولر ما انتلكتشوال كالرسمي قاه حوله هو يقان نسيد اللون ارقو كنا مركا وحي الروميسيين لبدلو ودن كينو كنمي قبيالد باطالة رقم حنحنو تلبدن با يالا مامور حما يالا
وحفي عننا ويانا لكن waxaan u baahnay dhaqanka in la hufo maaha mutacallim ninka markuu xaqoo tago reerkoodii safka ka gala maxaad soo kordhisay awalba odayaal waanu haysanay reer hebel difaaciyay haddaadna qalin iyo buug la tagtaadoo reer hebel difaacaya maxaad ka soo lugoysay maxaad soo kordhisay qabiil in difaacdaa meeshii waa joogtaa qabiilku dooraba ha noqdee in dadka qoloqolo u qaybisa waa joogtaa masaladaa khubaraan u leenay ugama baahnin mid Uganda ka yimi iyo mid meel kale ka yimi toona wax ka weydiin mayno experts baa jooga waxaynu u baahnayn aqliyada cidii bedeli lahayd waxaynu u baahnayn cid wax soo kordhisa cid dadka aragtiyahay haysteen qaldanaa hufi karta cid wax aqoon noqota cid aan aqoonyahan ku tilmaamno cid dadka jidka qaldan ka toosin karta yes dadku waa tiro badan yihiin afkaarteena aad bay ugu badan tahay laakiin ummad kasta waqtiga isbedelka hore waxay gashaa in afkaartoon laga hadlo oo aan materialku wax badan isbedelin mesela casrigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada materialku wax badan isma bedelin laakiin maxaa isbedelay cuquushii dadka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqaale abuur iyo baabkan ma u dhaqaaqin wuxuu u dhaqaaqay cuquusha bini aadamka inuu bedelo wuxuu u dhaqaaqay rijaal qiyaada wada qaban kara inuu soo saaro wuxuu u dhaqaaqay umma dhammaanteed qaa'ida buu soo saaray nabi maxamed arday kama tegin qaada buu ka tegey waa kala nooc marka aad sheekhu muriidiin markuu soo saaro iyo markuu soo saaro rag shuyuukha oo booskiisa iyo boosaska laba fadhiisan kara waa laba shay kala nooca kobigaaga inaad soo saarto maaha waana soo saartaa qof adiga wax ku dhaami kara halkaad adigu dadka ku haysay ka dambeeya waa inuu tallaabo ku dhaafiya oo dadka hore u sii wada laakiin hadduu noqdo kobigaaga waxa laga yaabaa inuu inkaasii liito weliba halkii aad joogteen halkaasii yaro hoosaysa inuu gaadhsiiyo idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey culture-kii iyo caqiidadii iyo dhaqankii iyo maa bilanfus buu bedelay taa markuu bedelay saxaabadiina intay shucladaasi qaadeen ifkaa intay qaadeen bay dunidoo dhan geeyeen maanta caalamul islaamiga aynu ku nool nahay wuxuu u badan yahay intii saxaabadu furatay raggii uu nebigu tababaray calayhi salaatu wasalaam ee qaadada ka dhigay intay iftiinka gaadhsiiyeen buu u badan yahay intaynu maanta weli ku nool nahay yurub xataa goormuu isbedelku yurub yimi wuxuu yimi casru tanwiir wixii ka dambeeyey casru tanwiirku waa maxay waa renaissancku markuu bilaabmay kadib waa cusurtii ay caqliga xoreeyeen oo maxay ka xoreeyeen diin khuraafo ay haysteen diin khuraafo ay haysteen oo maalan qofkii xanuunsadaba waxay rumaysnaayeen jimin iyo waxbaa ku dhex galay oo xanuunku inuu jin iyo shaytaan ka yimaada bay rumaysnaayeen kii koowaad markuu soo saaray microscope uu yidhi maaha jermis baa jirjiray iyo wax kale waa la maagay waxaa la yidhi waa hartaqa bidac baad wadaa kii yidhi dhulkaa wareega iyo waxbaa wareega waxaa la yidhi diinta baad ugu ad ka baxday waa la laayey waa la gubay brono iyo iyagoo nool baa la gubay galiile iyo inta la xidhay baa ilaa xad uu ka toobad keenay lagu hayay xabsiga qaar waxaa lagu qaaday maxay dilaan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubo isagoo nool maxaa waxaasoo dhan loo sameeyey diin khuraafaa bay haysteen diintii ilaahay oo la bedelay oo wax kale noqotay oo inta aragtidii Ptolemy iyo Aristotle iyo waxa inta la qaatay ayaa diin laga dhigay dee sayniskuna wuu socdo wax horumaraya buu ahaa alana casru tanwiir bay galeen markay caqliga xoreeyeen ayay weliba waxay qaateen beacon iyo nimankii la odhan jiray manahijtii muslimiinta ee baxdiga cilmiga ahayd markaasaa waxaa bilaabmay renaissance iyo wixii la midka ahaa inay wax soo korin karaan wax dunida ku soo kordhin karaan ilaa iyo technology-ga maanta ay hogaaminayaan dunida ay keeneen idan isbedelka bini aadamku caqligu ka bilaabmaa isbedelku material la koobi gareeyo maaha material la koobi gareeyo carabtu daaro dhaadheer bay dhistay laakiin ma waxbay soo kordhiyeen skyscrapers bay wada dhiseen annaga daartayada tiina ka dheer kolba daar cirka qabanaysaa la wada dhisay laamiye qurux badan baa la sameeyey waxaasi maaha waxba bedela materialkood soo koobiyeyso horumarku maaha horumarku waa bini aadamku aad bedesho siduu u fakerayo siduu wax u baarayo siduu wax u qabanayo bini aadamku isaga markaa dhaqaalaha sameeya isaga wax soo saarka sameeya isaga waxa ka sameeya Germany dhulka lala simay
laakiin caqliga ay hore u bedeleen dhulka markii lala simay waxay ka dhigeen maxay malik ibnu nabi baa wuxuu odhan jiray markii dhulka lala simay Germany haddii Jarmalka la soo qaadi lahayo wadan afrikaana la dhex dhigi lahaa buu yidhi kuwa afrikaanka ee deganna la qaadi lahayo Germany la geyn lahaa kuwaasina meel dunsan unba iska noolaan lahaayeen buu leeyahay kuwii la soo qaaday Jarmalna wadan cusub iyo dal cusub ay sameeyeen yani waa bini aadamka siduu u fakarayo suu wax u arkayo suu wax u qabanaya la isbedelaa idan kaadirkaanu rabno maaha haan la dhaamiyey maaha shahaado waraaqaad sidato xagga sarena koros kaga sawiran yihiin xagga hoosena ay ku qoran tahay in the name of law bismi alqaanuun xataa bismi illaahi raxmaan raxiim kuma taallo bismi alqaanuun ay tii kacaanku bixin jiray waxaasaa noogu qoraa tiisiyad darre waddanka soomaaliyeed ka qaadanay xataa bismi illaahi raxmaan raxiim ma lahayn bismi alqaanuun baa ku qoray in the name of law shahaado waraaqa ma tanfac waxba korrayn mayso hebel waa master iyo waa first degree buu sitaa iyo laba master buu sitaa iyo laba PhD buu sitaa hada ma tanfac waa waraaqo laakiin haddaad adigu qof isbedelay tahay yes markaasay macna samaynaysaa